Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaheyga waan idin salaamay adduunka meel walbaad ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Muna Som waa walaashiina Muna insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rajeynayaa inaad ii caafimaad qabtaan bashbash iyo barwaaqo inaad ku soomaysaan insha Allah ayaan idin rajeynayaa maanta waxaan idinla wadaagayaa Ramadaan routiinkeyga insha Allah ayaan idinla wadaagayaa sidaan waqtigeygan u kala dabaro iyo waxyaabaha aan qabto ayaan jeclaystay insha Allah in aan idinla wadaago hadda caruurtii xanaanadii ayaan iska geeyey cashir ayaa mardhow iyo bilaamo rabo marka nus saac ayaan haystaa nus saacaasi ayaan rabaa alaab yar inaan iska sii samaysto hadda alaabtii afurka ayaan banaanka aan soo dhiganayay burka waan idinla wadaagay sambuuska labadaba youtube channelkii ayay ku jiraan maadaama aysan ii suurtagaleynin in aan maalin walbo aan sameeyo sidaas darteeda weekend walba ayaan diyaarsadaa barafka ayaan gashanayaa maalin walbana wixii aan u baahanahay ayaan ka isticmaalayaa burkane waan qasanayaa waa diyaarsanayaa markuu ii qamiiro barafka ayaan gashanayaa maalin walbo intaan u baahanahay ayaan kala soo baxayaa insha Allah marka hadda waxa igu xigto alaabta ayaan rabaa inaan iska raacsiiyo alaabtii wixii lagu soo xurtay isaaka caruurta waxay ku cunteeyeen ayaan rabaa insha Allah inaan iska raacsiiyo mar walba ma jecel alaabta inay jikada ii taalo waa la sooman yahay waa la daalan yahay online classes ayaan ku jiraa maalintii oo dhan marka jikada markaan soo galayo raba afurka inaan iska boobsiiyo ma rabo jikada inay i xayirto oo alaab waxaas inay taalo sababtoo waan kusii caajisaa daal ayaan kasii qaadayaa marka afurka aan diyaarinayo waxaan rabaa jikada inay nadiif iisii ahaato oo alaab iyo waxaas dhan aanan ka murgin oo bacdal afur leh alaabta inaan iska dhaqo marka hadda alaabtii lagu suxuurtay maadaama saqdi dhex la suxuurinayo laga gaaraynin iyo caruurtii saaka waxaan quraacdii aan ku siiyey ayaan iska raacsiinayaa jikadana nadiif inay ii ahaato ayaan rabaa kadibna insha Allah waxaan galayaa online classes ayaan leeyahay subaxii ilaa galabkii cashiradeydii iyo waxaas ayaan sii galayaa runtii waqtiga aad iyo aad ayuu maanta cariiri u igu leeyahay insha Allah waxyaabaha aan sameeyo oo ramadaanka dhammaanteen aan ka wada faa'iideysan karno ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago adigoo xitaa mashquulsan ama iskuul waxbarasho dhiganayo insha Allah sidaad uga faa'iideysan lahayd videogan hadda kor waan soo geliyey abab badan oo wanaagsan oo maasha Allah aan idinla wadaagay oo idinka caawin doono ramadaanka keliyana ma ahan mar walba waa wax oo lifestyle aad u baahan tahay inaad ka dhigatid cibaadada ilaahay mar walba waa waajib waa midna saaran si walbaad u mashquulsan tahay si walbaad u daalan tahay qasab waaye in aan ka baxno marka hadda waa kana cashiro ayaa ii socdo halkan ayaan soo fadhiistay cashirkii ayaan iska sii dhiganayaa jikadiina waa iska soo hagaajiyey guriga intiisa badan wuu iska hagaajisan yahay maasha Allah marka waxbarashadana si tartiib ayaad waxan ku baran kartaa guriga markuu ku hagaajisan yahay oo ku degan yahay laakiin hool iyo alaab maanta dhan markay ku sugayso waad ka walwalaysaa marka hadda cashirkeyga ayaan dhiganayaa mar walbo cashir markii la dhiganayo wax yaroo break ayaa la helayaa 10 daqiiqo 5 daqiiqo sometimes nus saac ayaa leenahay xilliga qadadana yacni waxaana la siiyaa hal saac oo break ah marka hadda maasha Allah waxaan idinla wadaagi doonaa insha Allah break markii la siiyo waxa aan sameeyo mobilkeyga ayaan soo qaadanayaa abab badan ayaa igu jiro maasha Allah ducooyinka halkaas ayaan ka akhrisanayaa adkaarta halkaas ayaan ka akhrisanayaa waxaan kaloo ka akhrisanayaa isheeg quraanka ayaan ka akhrisanayaa insha Allah videoga hoos ayaan idin soo dhigi doonaa ababkaasi ka faa'iideysta mar walba wuu idin caawinayaa ramadaan iyo ramadaan la'aanba aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay maadaama waqtiga cariiri uu iska yahay qof wax baranayso waa taqaanin sidaas darteeda mar walba waxaa muhiim ah markii aad jaanisba aad heshid 5 daqiiqo 10 daqiiqo inaad ka faa'iideysatid hadda waa kana break yar ayaa nala siiyey waxaan idinla wadaagayaa mobilka waxaan idinla wadaag abkaas waxaa waaye dikriga ilaahay inaa maanta dhan waa la sooman yahay in la dikriyo aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay inta mar mobilka aad taabatid ayuu kuu sheegayaa 5 daqiiqo break intaas haddaad ku sameysid maasha Allah 5 daqiiqo kale break haddii lagu siiyo hal suurad aad akhrisid way kasii wanaagsan tahay haddana break yar haddii lagu siiyo adkaar yar iyo ducooyin yar aad akhrisatid maasha Allah adigoo wax baranaysid haddana aakhiradaadii ma aadan u hilmaamin bishaan barakeysan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa khayrkiisa inuuna siiyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa inta xanuunsan ilaahay caafimaad inuu siiyo inta caafimaad qabtana ilaahay subxaanahu watacaala inuu caafimaadka u zaa'idiyo insha Allah isku soo duceyno walaalo ayaan nahnay ababkaasna insha Allah inaad ka faa'iideysatiin ayaan rajeynayaa markii ramadaan aysan ahayn xitaa runtii aad iyo aad ayuu aniga ii anfaca anuu meesheedii oo fadhiyo cashirkeygana dhiganayo meel dheer aanan aadin
ayaa maxay ahayd hal ab ayaan furanayaa haddii ay noqoto mid quraan, haddii ay noqoto mid oo hadday noqoto mid ducooyin, mid adkaar, maasha Allah runtii aad iyo aad ayuu i cajabiyey. Marka maalintii oo dhan maadaama cashir aan ku jiro mar walba bareeg aan helo sidaan ayaan sameeyaa. Bareeg ayaan ka faa'iidaystaa inaan bal sii cibaadaysto oo waxyaabo kala duwan bal aan sameeyo. Marka maasha Allah waxbarasho iyo waxbarashadaada adoo wadatid haddana aakhiradaada inaad u shaqaysatid aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Haddana saad arkaysaa moobilkii waan dhigay cashirkii ayaa lagu soo laabtay. Macalinka ayaa maanta online inoo fadhiya. Haddana cashirkeygii ayaan dib aan ugu laabtay. Marka inta badan saas ayaan sameeyaa hadday Ramadaan tahay haddaysan Ramadaan ahayn. Insha Allah ababkaas inaad ka faa'iidaysatiin ayaan rajeynaya. Walaalihiina la wadaaga qof walbo mashquulsan haddii aad shaqaysid sidaan ayaad sameyn kartaa. Mar walbo bareeg yar aad heshid moobilkaada aad la soo baxaysaa. Uma baahnid maanta dhan buugaag badan inaad soo qaadatid ama quraanka maanta dhan inaad wadwadid uma baahnid. Waxa dhan moobilkaada ayay kugu jiraan waana easy meel walba aad joogtid ayaadna ka akhrisan kartaa maadaama moobilkii maalin walbo aad wadid. Inta badan ilaa galabkii laga gaarayo halkan ayaan fadhiyaa sidaan ayaan cashiradii ayaan ugu shaqaysanayaa. Galabkii markii la gaaro inta carruurta aanan dooninin mar walbo waxaan jeclahay in aan usii diyaariyo wax yar oo fudud oo casriye yar aan usii diyaariyo ayaan jeclahay. Guriga markii la yimaado waqtiga aad iyo aad ayuu u ordaa. Waxaa laga yaabaa ilmihii inay baahi ahayaan. Marka sidaas darteeda inta aanan bixinbo ayaan wax yar fruit yar ayaan u diyaarinayaa. Cambo yar ayaan usoo jarjaray. Haddana waxaan u fiiqayaa pear ayaan u fiiqayaa. Ma aqaan kolley fruutadan af Soomaali wixii lagu dhaho. Haddii af Soomaali aad ku taqaanin insha Allah nala soo wadaag. Kuleel zaa'id ayaa maanta noo jiro maasha Allah. Waxaan usii diyaarinayaa fruutadii ayaan usii jarjarayaa. Laba casiir oo aan usii qaboojiyeyna waan usoo bixiyey. Kuleel zaa'id ayaa jiro wax yar ee carruurta isku qaboojiyaan oo energy yar ay ka helaan ilaa cashada aan ka boobsiinayo ayaan usii diyaarinaya insha Allah. Haddana waa kana fruutadii waan dhameeyey waan baxaynaa ila socda insha Allah. Carruurtii ayaan soo wadayaa waqtigoodii ayaa la gaaray. Haddana waan soo baxnay xaafadda ayaan usoo socdaa. Carruurtii waan soo waday. Maasha Allah maanta jawiga aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. Xilligii samarkii ayaa nala gaaray. Insha Allah Ilaahay khayrkiisa hana siiyo. Marka hadda waan soo baxaynaa dukaan yar ayaan soo marayaa oo kabsar caleen iyo moos iyo tuun yar iyo waxaas ayaan ka rabaa. Dukaankeenii markaan kasoo dhamaanin insha Allah waxaan aadi doonaa xaafadda. Afur yar ayaan rabaa inaan boobsiyo aan diyaariyo. Haddana dukaankii ayaan imaanay alaabo yar ayaan ka qabsanaynaa. Dukaan maasha Allah ii dhow waayo wax walbo oo iga go'o ayaan ka helaa hoos leen u deganayaa. Marka guriga intaanan soo korin ayaan soo wada maraayay. Usually ilmaha markii aan xanaanad aan ka doonayo waa maray cashiradii ay ii dhamaadeen. Adiga 9 saac meelahaas waaye 9 saac ayaa la marayaa. Haddana waa kana kabsar caleenteeni ayaan soo qaadanaynaa iyo adeegii kale aan u baahnay. Kadibna insha Allah waxaan aadaynaa xagga iyo xaafadda. Kadibna insha Allah afur yar ayaan rabaa inaan boobsiyo oo aan diyaariyo ila socda asxaabta. maasha Allah hadda xaafadii ayaan imaanay adeegii wixii yaray ayaan kala toosinayaa. Kadibna ilmaha ayaa gacanta u dhaqaa casriyadoodii inta ay soo cunayeen insha Allah waxaan rabaa in aan boobsiyo. Afur yar ayaan rabaa insha Allah inaan boobsiyo. Odayga ayaa shaqo aadayo marka afurkiisa ayaan u diyaarinayaa ila socda. Burkii waa kana oo aday aan soo baxsaday. Bacdi ayaan ka bixinayaa wax yar oo bur yar ayaan qaatay waan fidinayaa. Isla markii ayaa laga dubaa uma baahnid xitaa inaad sugtid ilaa uu ka qamiirayo. Isla markii ayaan ka dubaynaa waa jarjaraynaa. Aad iyo aad ayuu u fudud yahay caloosha ayuu socodsiinayaa maasha Allah. Chia seed geed la dhahay ayaan ku daro aad iyo aad u wanaagsan. Haddana waa kana burka maasha Allah soo u gaduudanaya waad arkaysaan. Waan soo dudubaa markaan soo dubo sambuuska ayaan soo dubayaa. Kadibna insha Allah alaabta ayaan baakadeynayaa. Intaa markii aan dhameeyo afurka kale oo hadhow bariis ama baasta ama wixii la cuni lahay gadaal ayaan ka karinayaa insha Allah. Haddana waa kana saan markii aan diyaariyo ilmaha ayaan waqti la qaadanayaa. Inta waqti markaan la qaato kadib haddana jikada ayaan kusoo laabanayaa. Ilmaha inta ii sii casheynayaan ayaa waxaan sii sameynayaa insha Allah. Afurkii iyo saxuurtii kale hal mar ayaan iskula karinayaa. Marka waa kana asxaabi insha Allah inaa videoga ka heshan ayaa rajeynayaa maalinteyda. Idinkan waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan ama haween wanaagsan markaad xilligaad i daawanaysaan.
insha allah kheyr ayaan isku ognaanay videogan hanaga hilmaamina inaana dhiirigelisaan oo like iyo subscribe iyo share iyo comment aad naga bixisaan jasaakallah kheyr ayaan idin leeyahay insha allah inta kale video aan ku kulmayno kheyr ayaan idin dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh